kulanti wacan oo wanaagsan daawade halkani waa janalka ciido soo dhawow waxaan idiin hayaa warbixin aad u xiiso badan oo ku saabsan caabuqa dunida halakeeyay ee loo yaqaano coronavirus. inta aynaan u gudagelin daawade waxaanu kaa codsanaynaa haddii aad tahay daawado ku cusub janalkeenna marka hore inaad inoo subscriber garayso janalka waad ku mahadsan tahay la socoshadeenna sheeradhe siina laygaree gaadhsii saaxiibadaada jecel wax ka ogaanshiyaha caabuqan. hagaag daawadayaal aynu bilowne afartii bil ee aynu ka soo gudubnay waa midka ugu hadalhaynta badan dunida waxa uuna qof kasta oo dhegihiisa ku soo dhaca dareemi karaa saamaynta togan iyo midda taban ee uu ku leeyahay dunidan aynu ku noolnahay. waxa uu ka soo bilaabmay dalka Shiinaha gaar ahaan magaalo lagu magacaabo Wuhan. kiisaska caabuqan waxay gaadheen 800,000 oo qof oo uu soo ritay ku dhawaad nolosha 36,000 oo qof ayuu galaaftay isla markaana sababu uga noqday inay ka hoydaan dunidan aynu ku noolnahay. tirada ka kabatay ayaa gaadhaysa 140,000 oo qof kuwaasi oo uusan noqonin sababtooda balse la tusiyey xanuunka uu leeyahay. waxa uu ku dhacay guud ahaan dadii uga kala duwan ee ku dhaqan dunida haba loo kala badnaadee balse muusan cafinin dawlad ka weyn dal ka weyn iyo sidoo kale dal dadka badan. waxa uu inta ugu badan saameeyey dalalka ugu quwadda badan caalamka oo laga helay kiisaska ugu badan ee xanuunkan la xidhiidha. Focus on restoring the economy here is now a number one priority as they continue, of course, at the same time to try to ensure that there aren't further outbreaks here in China. They have, of course, conceded that there could be a second wave, but clearly getting the economy back on track remains. qof waliba oo xilligan dunida ku nool waxa uu dhegta ku hayaa warbixinada maalinlaha ah ee ka soo kordha caabuqa COVID-19. midkan aan ka hadlayo waa coronavirus. dabayaaqadii December ayuu soo shacbaxay. waa xanuun la isku khilaafsan yahay waxa keena ama dhaliya balse la isku raacsan yahay inuu ka yimaaday xayawaano. isticmaalka waxyaabaha qaar waxa ay keeni karaan ku khamarka noloshaada. haddii aanad ka fiirsan tallaabo waliba oo aad qaadayso waxay saameyn ku yeelan kartaa malaayiin qof oo noloshoodu ku xeeran tahay adiga taada. dawladaha ugu waaweyn caalamka ee uu saameeyey caabuqani waxa ay bilaabeen ka hortag isdifaacid iyo sidoo kale qaadidda tallaabooyin kala duwan balse waa wax xagga alla ka socda oo la sheegay inuu ka mid yahay aayaadka Allah subxaanahu wa ta'aala ku sheegay quraankiisa. sidaasi darteed ma jirto magaalo ama goob aan laga hadalhaynin caabuqan waxa uuna yahay mid saamayn xoogan yeeshay dartii waxa uu sababayaa inay isdilaan mas'uuliyiin xilal sarsare ka haya qaar ka mid ah dalalka hormaray. muddo yar ayuu haystaa hawada balse saamayntiisu waa ay ka badan tahay shay jiray kumanaan sano. marka la eego xaaladaha xilligan ee dunidu waxay u muuqataa kala guur. ma jiro isku socod, ma jiro samayn ganacsi, ma jiro horumar dhaqaale, mana jiro tegid goobo waxbarasho, goobo la iskugu yimaado, goobo loo dalxiis tago iyo sidoo kale goobo la isku arko. qof kasta oo dunida xilligan ku jooga halkuu doonaha kaga noolaadee waxa uu isku dayayaa la tacaalidda naftiisa iyo inuusan ka mid noqonin kumanaanka qof ee safmarkani uu ku dhacayo. marka aad eegto muuqaalada iyo sidoo kale sawirrada laga soo qaadayo dalalka caalamka waxay indhahaagu qabanayaan sida qof kasta uu ugu dadaalayo inuusan gelin liiska caabuqan. waa karantiimayn iyo sidoo kale dadka qofka lagu helo caabuqan wuxuu dareemayaa niyad-jab, wuxuu noqonayaa keligii, wuxuuna dareemayaa oo soo wajahaysa cabsi fara badan. haddii aad ka mid noqoto dadka caabuqani uu galaaftay isla markaana aanad ahayn qof Allah subxaanahu wa ta'aala yaqiinsan oo ku sabri kara qadarka waxaa markiiba niyadda kaaga soo dhacaya waxyaalo xunxun.
markaynu ka soo tagno saamaynta dunida oo dhan uu ku yeeshay Afrika oo ka kooban 54 dal kaliya waxaa ka badbaaday 6 waddan lama odhan karo waa ay badbaadeen balse warbixinada maalinlaha ah ayaa maalin kaste ogaanaya warbixin cusub iyo sidoo kale xogo dheeraada oo ka soo kordhay waxaa jira dalal aan horumarsanayn isla markaana aan awoodin ka hortagid la tacaalid iyo sidoo kale wax ka qabasho xanuunkan balse isku dayaya awoodooda inay muujiyaan haddii aad la socoto xogaha caafimaad ee ay dhiibayaan dadka khuburada ah maadaama xanuunkan uu yahay mid saacad daqiiqad iyo sikino iskaga beddelayaan warbixinadiisa waxyaabo badan waxa ay kuu sheegayaan inuu yahay mid aan la isku halayn karin oo aan la ogaan karin heerka uu taagan yahay hogaamiye kaste oo mas'uulka ah dad waxa uu xilligan u tafaxaydanayaa qaadista tallaabo ka weyn midii hore uu u qaadi jiray dadka ka faallooda culumta caafimaadku waxa ay tilmaamayaan in kani uu yahay midaan abidkii hore loo arag oo ay ku tusinayso taasi saamayntiisa dhaqdhaqaaqiisa iyo sidoo kale hadalhayntiisa dhinacyo kale markii aad ka eegto waa uu fudud yahay oo halistiisu sida la sheegay waxa ay tahay midaan u badnayn sidaasi marka loo eego dadka aan sababtiisa noqonahaynin isaga waxaynu joognaa Soomaaliya waa dal ka mid ah qaaradda Afrika waxa uu ka soo baxay burbur muddo dheerna muusan helin adeegyadii dalka aasaasiga u ahaa sidaas oo ay tahay horaantii bishii aynu ka soo gudubnay waxaa la shaaciyay in lagu arkay kiisaskii ugu horreeyay ee la xidhiidha caabuqan coronavirus ama COVID-19 aan xaqiijinay xaaladii ama kayskii ugu horreeyay oo coronavirus ah sidaad la socotaan waxaa jira muwaadiniin Soomaaliyeed oo dibadda ka timid oo lagu hayay airportka dhexdiisa si loo hubiyo caafimaadkooda maadaama ay ka yimaadeen meelo caabuq aad iyo aad ugu koreeyay waxay ahayd taxadar meel loo asteeyaa la geeyay waxaana laga qaaday wax walbana waa la baarayay waxaa laga qaaday baaritaankii loogu talagalay in lagu ogaado caabuqa dadka Soomaalida ah waxa soo wajahday cabsi balse sida ay u cabsanayaan uma muuqato inay u taxadarayaan markii aad eegto awaamirta iyo sidoo kale hadallada ka soo baxaya xukuumadda oo u baahan in la fuliyo la qaato laguna dhaqmo uma muuqdaan shacabku inay u dhaganugul yihiin intii aan ku guda jiray daawade diyaarinta warbixintan waxaan tagnay goobo badan oo ay shacabku iskugu yimaadaan waxaan la soo kulmay qaar ka mid ah shacabka indhaha u ah bulshada ee iskugu yimaada goobaha caanka ka ah magaalada halka idiin muuqata waa wadada Maka al-Mukarrama waa meesha iskugu yimaadaan dad badan haddana waxa ay muuqataa in dhaqdhaqaaqeedu uu yahay sidiisii hore markii loo eego intii aysan jirin cabsida coronavirus ama COVID-19 markii aan weydiiyey su'aalo qaar oo ay ka mid yihiin maxaa keenay qaadasho la'aanta amarka dawladda waxa ay ku jawaabeen sida tan maya u malayn ma inaan dhaqan galeen sababtoo wali dadku waa isu dhex jiraa masaajidada baanu ku wada jirnaa iskuullada baanu joognaa maqaayada baan wada fadhiisanaa shacabku waa caadigeedii wax dhex galay oo dhaqan galay anigu ma arko hadda ilaa hadda aragtidayda shakhsi marka u malayn maayo in arrintaas inay suuro gashay wacyigelin macquul oo weyn dawladdu maba keensanayo gaadhi yar baa halkaa wareegayo leh kala fogaada kaasuna wacyigelin maaha marka hadday dawladdu doonayso inay wacyin geliso waxaa weeyaan si cilmiyeysan oo aqoon leh oo farsamaysan inay u gelisaa baa ka qurux badan intay hadba gaadhi yar la wareegayso hadday doonayso inuu waxaanu sir galo midda kaleeto waxa waaye practical wax u dhacay oo rasmi ah oo ay sameeyeen dawladdu dee gaadhi baa wareegaya oo kala fogaada aqoon maaha cilmina maaha wax dadka la weydiin karana maaha xataa suxufiyiinta ay la wareegaan maaha haween dawladdu waxay leedahay wasaarad dhan waxay leedahay dhakhtarro waxay leedahay system nidaam ah
haddaanay nidaamka dowladdu soo marin ma gaadhi wareegaya baan u malaynayaa in dadka lagu hufaan karo ma qabo in waxbaan kaagan aniga in la kala fogaanaya ma qabo haddana yacnaha arki mayno ilaahay idinkii soomaalida iyo muslimka meelay joogan ba horta ilaahay ka badbaadiyo midda kale soomaalida yacnaha maarta waa isu imaani 5 10 20 bay u fadhiyaan haddii aaminsan yihiin baalkooda ku dhacaya sidii gaalada guryaha isku aruurin lahaayeen marka maba aaminsanago ilaahay bay aaminsan yihiin waxaan leeyahay horta ilaahayga subxaana qaadirka horta muslimka ilaahay ka badbaadiyo midda labaad ilaahayga soomaalida ka badbaadiyo baalkan jaadka la leeyahay hadda magaalada wuu yaallaa waan la mamnuucay feeriska saa wataaliyo nimanka dadna ugu dhow waa Itoobiya iyo Kenya caadootinimada xataa waa noo soo marmarinayaan inay soo marmariyaan baa laga yaabaa ee yiraahdaan Soomaalida maadaama muslimka ku dhici waayo Soomaalida ku dhici waayo baalka ku dhaco dawladda maxaa alfarahaya baalkaas in gabiisa laga joojiyo gabiisa hadda magaalada waa lagu gadahaya meeshaas hadda soo marshay waxaa arkay in askari oo kala baxayo $35,000 $35 maxaa ku kalifa marka dadka u dhacaya $35 xagee u keenay karaa maradaas wax ka dhaqan gale ma jiraan anaga Soomaalideena waxa weey bulsho ahaan dad madax adag waa dadka hadda banaanka jooga Sweden iyo banaanka habeenka alla sheekaysan banaan meelaha la isugu yimaado gaaladii waa xaroodeen kulli mataqaanaa nin walba gurigiisa ku xarooday Soomaalidii waa la kari laayeen 10 qof iyo 5 qof isugu imaanayaan maaragtay baalkan isku maasaha laga qaadaa maaragtay sida ugu dhow ayuu qofku qaadayaa maaragtay qofkan waxa fiican inuu ilaaliyo mutaala alwaqaaya غير من العلاج الله كل وحدو سومالي سو غارنا دبدو نوغي يميد مid dalka Soomaaliya ka dhashay ma marka habka hadda dawladda ugu tacaalisana ma xuma laakiin xogaa waa gaabis baa ku jira waxa rabayeen mar hore laga taabashaysto oo qalabkii wali ogaan lahaa cidda qabtay iyo cidda aan qabin in la keenay ala ay xal haddii dawladda xoogga ay saarto dadkan dibadda ka imaanaya inaanan loo ogolaanin dalka soo galaan ani waxaan qabaa in aad loo xakameeyo marka ilaahay ha naga koriyo sida dhaqaatiirta iyo caalamkuna ay sheegeen waa cudur aad iyo aad halistiisa leh marka waxaan ilaahay ka baryaana inuu aniga na garab mariyo lannahu xukuumad ahaan iyo shacab ahaan midna awood uma lihin inaan si dhab ah uga hortagno lannahu qalabkii looga hortagi lahaa iyo daawadii intaba midna ma haysano dhaqaatiir ilaahay waana siiyey kalkaalyaal ilaahay waana siiyey laakiin qalabkii adeegsan lahaayeen ayaa meesha ka maqan marka dawladda ha ku dadaasho inaan noo soo gelin cid dibadda ka timid meesha dhinacay doonta ha ahaatee inay noo imaanin marka habka kii lagu xakameyn karaa waa kaas maxaa kuu soo haray awaamiirtii la bixiyey Soomaalidu ma hoggaansami karto sababtoo ah cid maanta kafaalo qaadaysa in muxuu ahaa qof walba gurigu ka soo tagay in ilmihiisii iyo xaaskiisii in loo biiro dawladdu ma karto cid kale u biirsaana ma laha sida waddamada caalamka waddan walba shacabkiisa lacag buu u qoondeeyey kii shaqaynayay iyo kii aan shaqaynayn intaba laakiin shacabkan waa shacab aan cidna u maqnayn marka waa dad ku jira muxuu ahaa garab rabta ah oo istaragal ku jira nolosha la dagaalamahaya marka haddii la yidhaahdo meel kasta waa la ka xidhahaya hadda yaa u adeegaya yaa wax siinaya marka arrintaas waxay u baahan tahay in dib si fiican looga fiirsado oo aan go'aan iska gaarin haddii waxaa la sameeyo oo shacabka waxaa lagu sameeyo maxaa ka dhalan kara waa in la yidhaahdo marka anaan intaasaan dhihi lahaa waad ku mahadsan tahay daawada la socoshada muuqaalkan aadka u xiisaha badan haddii aad ka heshay like saar noo share garee subscribe noo dheh channelka oo nagu soo biir waad ku mahadsan tahay talada wanaagsan ee aad noo soo gudbinaysana qaybta commentiga noogu reeb mahadsanid